barnaamijkan gabahaba maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa colaadda Israa'iil iyo Iiraan u dhaxaysa ayaa maalintii toddobaad socota laakiin xaaladdu waxay ku adkaanaysaa Israa'iil oo dagaalkan si fudud ku gashay isla markaasna filaysay in ay si fudud ku jabin karto Iiraan kadib markii gudaha Iiraan ay ka samaysatay shabakado canaasir ah oo la shaqeynayay kuwaas oo si fudud imikana gacanta loogu soo dhigay mas'uuliyiinta Iiraan ayaa maalinta ka dambaysa waxa ay ku dhawaaqayaan ama ay sheegayaanba in ay qabanayaan canaasirtaas Israa'iil la shaqeynaysa waxaana xoogistay duqeynta Iiraan ay ku hayso magaalooyinka kala duwan ee ku yaala Israa'iil barnaamijkan ku horeeyay waxaan idinku soo gudbinay duqeyn culus oo maanta ka dhacday magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale waxaana soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan qasaaraha inuu imika ku dhow yahay ilaa iyo 100 qof waxaana ka mid ah meelaha la duqeeyay xarun ka mid ah xarumaha ciidamada oo ku dhow cisbitaalka ugu weyn koonfurta Israa'iil ee Soroka waa cisbitaalka lagu daaweeyo inta badan askarta ku soo dhaawacanta dagaalka Mareykanka Gaza sidoo kale waxa la duqeeyay xaruntii ugu weyneed ee suuqa ganacsiga ee magaalada Tel Aviv goobo kale ayaa sidoo kale dab u ka baxaya waxaana tan lagu tilmaamayaa inay tahay mid aad u culus sababtuna ay tahay gantaaladii maanta ay soo riday Iiraan oo la sheegay in ay ka hortagi waayeen nidaamyada difaaca Israa'iil waxaan la arkay gantaalada oo laba qarxaya Iiraan waxay leeyahay imika waxay bilowday xeelad cusub oo ay soo ridayso gantaalka marka la qabto inuu si laba qarxayo dhinaca kale Mareykanku wali waxa uu ka labaynayaa dagaalka inuu ku soo biiro fariimahan waxa leeyahay imika socdaan waxay kuwa loogu digay Mareykanka xubno badan oo ka tirsan maamulka Trump ayaa madaxweynaha ku wargeliyay in aysan dhici karin dagaalkan si fudud in looga guuleysto Iiraan halisna la gelin karo askarta Mareykanka danaha Mareykanka iyo saldhigyada Mareykanka ku leeyahay bariga dhexe sida warbaahinta Mareykanka laga soo warinayo dhanka Israa'iil warbaahintu waxay sheegaysaa in xitaa aysan hubin Mareykanka dagaalka inuu gali doono gudaha Israa'iil waxa ka bilowday durbaba falcelin ku aadan dagaalkan waxaana socda hadallo kulkulo warbaahinta iyo baraha bulshada lagu soo bandhigayo kuwaasi oo la xiriira dagaalkan oo lagu dhaleerayo Netanyahu dhinaca kale waxaa suurtagal ah inay bilowdaan wada hadallo ku aadan sidii xaaladan loo qaban lahaa waxaynu eegaynaa sharuudaha la filan karo in miiska la timaado Iiraan oo uu qoray qoraa iyo aqoonyahan reer Iiraan ah oo faahfaahinaya arrimo badan oo xasaasiya oo laga yaabo inay noqdaan sharuudaha miiska ay soo saarato Iiraan oo madaxweynaha Mareykanku dhowr maalmood ka hor uu yiri waa inay si sharuud la'aan isku dhiibtaa laakiin hadda u muuqata inay geesan libax la soo baxday macluumaadkaasi oo idin ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa Maxamed Cabdi oo soo akhriyay warbixintan uu qoray qoraaga reer Iiraan ayaa qadka ku jira Maxamed intaanan bilaabin qormada ninkan qoraalka qoray Imaad Abshinaas maxaa laga yaqaanaa Dr. Imaad Abshinaas waa aqoonyahan reer Iiraan waa suxufi qoraa ah waxa uu la faguraa arrimaha siyaasadda waa professor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Tehran waxa uu madax u yahay xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee waddanka Iiraan waa nin si weyn looga yaqaano warbaahinta waddanka Iiraan waa qoraa la fagura arrimaha caalamka oo wargeysyo fara badan iyo warshadeyaal fara badan ee waddanka Iiraan ka soo baxa iyo meelo kale wax ku qora waxaa lagu yaqaanaa mowqifkiisa cad ee la xiriira gobolka iyo arrimaha caalamka gaar ahaan waxa uu si weyn uga hadlaa siyaasadda Mareykanka iyo Israa'iil ee ku wajahan waddanka Iiraan waxaana muuqata in qoraalkan uu soo bandhigay uu muujinayo Iiraan meeshii la rabay in laga buurto in ay hadda noqonayso mid ka mid ah quwadaha ugu waaweyn ee caalamka Mareykankana ay la gorgortami doonto marka miiska wada hadal la yimaado waa gartay in la buurto ayaa la filayay laakiin ayadaba buur noqotay muxuu ku bilaabay marka qoraagu qormadiisa Israa'iil ayaa waxay ahayd faralaqaad waxa ayna marmarsiye ka dhigatay in ay barnaamijka nuclearka Iiraan ay weerarto
iyadoo taageero ka helaysa Maraykanka iyo wadamada Yurub. haddii xataa barnaamijka nuclearka ee waddanka Iiraan uunan jiri lahayn ayuu leeyahay qoraagani, waxa ay heli lahaayeen marmarsiyo kale oo ay Iiraan ku weeraraan. cid kasta ayaa ogsoon in Israa'iil iyo Maraykanka inay bocboc ugu tugabayeen waddanka Iiraan muddo dheer oo marmarsiyo badan ay midba mid jeebka kala soo baxayeen. waxaana hubaala buu leeyahay Israa'iil waxa ay samaysay waxa ay ahayd natiijo ka dhalatay qorshe ayada iyo Maraykanka ay muddo sanado ah ka wada shaqeynayeen. inkastoo Iiraan ay saxiixday heshiiska nuclearka lagu faafreebayay laguna meel marinayay sida ku xusan 14 warbixinood oo ay diyaarisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xakamaynta nuclearka ee IAEA. dowladda Maraykanka kadib markay xaqiiqsatay in Iiraan ay fulisay dhammaan waxyaabihii laga dalbanayay ayay waxay dardar gelisay in Iiraan markay aragtay in taygelinta uraniumkeeda uu hoos u dhacay in ay heshiiskii ka baxdo xilligii hore ee madaxweyne Trump si ay isugu diyaariso waxa hadda dhulka ka socda oo ah Iiraan in muruq iyo xoog loo yeesho laguna diro Israa'iil oo ahayd eygii lagu sahminayay, waa sidoo hadalka u dhigaya goobta. waxaana cad dad badan oo Iiraaniyiin inay u tixgelinayaan wadaxaajoodka nuclearka laftirkooda inuu Iiraan khiyaano ku ahaa oo wadamada Yurub iyo Maraykanka ay u adeegayeen danaha Israa'iil iyo danahooda. maxaa yeelay Israa'iil iyo xaaladaha gobolka ka jira diyaar uma ahayn in weerar markaasi lagu qaadi karay waddanka Iiraan. Maraykanka ayaa waxa uu rabay in uu waqti u helo Israa'iil ay isu diyaariso wadaxaajoodo been ayuu ku maaweelinayay si ay Israa'iil weerar isugu diyaariso inay Iiraan gudaheeda ku qaado canaasiirteedan u halgeliso. waa gartay. wuxuu ka hadlay wadaxaajoodadaasi dhacay arrimaha nuclearka la xiriiray Maraykanka iyo Iiraan dhex maray. muxuu markaasi ku sheegay ama ku sifeeyay shantii wareeg ee wadahadaladaasi maxamed? wadahadalada dhacay ee shanta wareeg ahaa ee dhex maray Maraykanka iyo Iiraan ayaa qoraagan waxa uu ku sheegay Maraykanka khiyaanay ka ahayd oo Iiraan ku maran habaabinayo. mar walba oo shirka ku soo noqdo wuxuu la imaanayay shuruudo cusub kulan walba, wuxuuna berber dhiganayay midkii kulankii ka horreeyey. marba marka dambeysa Iiraan ayuu kusoo durkayay si uu hor istaago heshiiskan ilaa ay inta laga gaarayay ilaa iyo maalinta 61 oo Iiraan loogu talagalay in ay lagu maaweeliyo Israa'iilna ay dagaal isu diyaariso sida uu Trump hadda ka hor hadalka u dhigay oo 2 bilood uu qabtay Iiraan. 2 bilood waxa ay dhammaatay maalinimadii Khamiistii, jimcihiina weerarka ayaa bilowday habeenimadiisa. waxaa sidoo kale uu leeyahay marka la fiiriyo qawaaniinta caalamiga ah waddan xubinka qaramada midoobay haddii la weeraro markay ugu yaraato golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa laga rabay inay cambaareeyaan cunaqabatayn ku soo rogaan waddanka weerarka qaaday. hase ahaatee waan aragnay waxa qaramada midoobay ka dhacay. Maraykanka iyo Yurub ayaa gaashaanka u dhigay in la cambaareeyo Israa'iil. golihii ammaanka ee qaramada midoobana waxaad moodaa in ay howshiisa naafeeyeen Maraykanka iyo Yurub. waxa Israa'iil ay samaysanayeen indhaha laga qabsaday iyadoo marmarsiyo laga dhiganayo cabsi iyo dhinaca kale in la qaado weeraro gaadma ah oo ka dhana waddanka Iiraan si dhinaca kale uunan u qaadan tillaabana loo tixgeliyo inay tahay wax qaanuunka uunan aqbali karaynin. waxa dhacayna waxay ahaayeen in la naafeeyo qawaaniintii caalamiga ah. Israa'iilna ay garab heshay. hadda laakiin waxaad moodaa arrimahaas oo dhan in ay ku soo noqonayaan ciddii maleegtay. waa gartay.
qoraaga wuxuu kaloo ka hadlay maxamed waxqabad la'aanta hay-adihii caalamiga ahaa oo golaha ammaanka qaramada midoobay uu ka mid yahay gaar ahaan inay qaadaan tillaabooyin la xiriira ficilada Israa'iil ay wado sida Gaza oo kale muxuu ka tilmaamay arrimahaasi iyo waxa hadda imika socda sida iskugu dhow yihiin qaramada midoobay inay guul dareysatay hay-adihii caalamiga ahaa oo ay tillaabo ka qaadi waayaan Israa'iil iyo dambiyada ay ka galayso marinka Gaza iyo gobolka intiisa kale oo ay ka mid tahay Suuriya iyo Lubnaan iyo Yemen intaa waxaa dheer inay mar walba xadgudub ku samayso qawaaniinta caalamiga ah inay xasuuq iyo dil joogta ku qaado dadka rayidka ah maalin cad oo dadka oo dhan u jeedaan oo warbaahinta adduunka ay soo gudbinayso adduunkiina in ay ka dhigtay Maraykanka iyo Israa'iil ay ka dhigteen meel duur ah oo xoog uu shaqeeyo waxaa jirta buu yiri oo qoraaga uu soo xiganayaa mahmahyo ay dadka Libnaaniiska isticmaalaan haddii qof walba uu naftiisa difaaci waayo ama qof walba oo naftiisa difaaci karo waa inuu naftiisa difaacaa haddii aad naftaada difaaci weysana waxaa waajib ah in aad la kulanto waxa Falastiiniyiinta ku dhacay oo kale wax qarsoodiye ma aha in Israa'iil sida uu xusay hadaladii uu jeedinayay Benjamin Netanyahu ay raadinayso militarigeeda inuu gacanta ku dhigo gobolka bariga oo dhexe oo dhan dhowr goor ayuu ku celceliyay isbedel ayaan ka sameeynaa gobolka bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika taasoo u suuragelinaysa Israa'iil sida qoraaga hadal ku dhigayo in ay gaarto riyadeeda ahayd inay abuurto Israa'iil weyn oo ka bilaabata webiga Niilka oo ku tagta webiga Euphrates ka dhigtana gobolka intiisa kala dawlado yar yar oo colaadi ka dhaxayso oo dhexdooda dagaalamaya Israa'iilna ay waxa ay rabto ku soo rogto marka la fiiriyo waxaasoo dhan Iiraan ayaa waxa ay noqotay awoodda keliya ee hortaagan riyada Israa'iil iyo Maraykanka